رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. كسو دواada barnaamijkeeni afuri oo walaalkaaga barnaamijkan waxa ugu talgalay shacbiyada Soomaaliyeed Royal 24 TV waxa ay booqan doonaa meelo kala duwan waxaana kamid ah magaalada ugu soo horeysa waa magaalada Tilburg oo degan Soomaali aad u fara badan halkaas waxaan kula kulannay dad badan oo Soomaali ah oo isku taxaluujiyay ama sadaqaystay maalkooda xoogooda ina afurka siiyaan dadka degan xarooyinka qaxootiga ee magaalada Tilburg ama Khilsraim ee wadanka Netherlands dadkaas markaan ku booqanay meesha ay ka howlgalaan ama meesha ay ku sameeyaan afurka waxaana u dhacday sida tan soo socota رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن روس lagu qabo ama maamul goboleed lagu sameeyo waa dad badan oo dhalinyaro ah oo waaweyn ah oo raadinayo ajir inay ka helaan maalmaha Ramadaanka رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن waxaan wanaagsanaa Xarbi Axmed oo ah dhalinyarta ka shaqeeya afuri walaalkaaga ee magaalada Tilburg ku soo dhawaaw Xarbi Axmed Royal 24 TV barnaamijka afuri walaalkaaga waan ku dhawahay oo mahadsantiin booqashadiina halka maxaad ka qabataa Xarbi waxaan ka qabtaa raashinka aan diyaariyaa walaalaha Soomaan oo muslimiinta akaamka ku jiro in aan caawiyo si aan u afuriyo inna meeqa sano ka shaqeynaysaa 6 sano 6 sano maad afur bixisay 6 sano ما ترى ما ترى أفريقيا زي سواء waa 550 550 ما Soomaaliya kaliya mise waa Soomaaliya Ciraaq iyo Suudaan Syria waa muslimiinta ku jirta kaamka ma ku faraxsan tahay inaad waxaan ka shaqeyso oo waqtiga aad ku dhimayso oo ku faraxsanahay waana midaan raalli ku ahay happy ku ahay haatan wuxuu ahaa Xarbi Axmed wareysi رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن haatan waxaan wareysanaynaa odayaasha
كمسؤول برنامج كان أفري ولالكاغا أما لا يراهدو رمضان إكسبريس وشيخ دون ديني كسودو برنامج كينا رويال 24 تي في أفري ولالكاغا الشيخ دون. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي بأمها سنتين بوقشة نصوب بوقتين برنامج كان مارتي ومعذرني رمضان إكسبريس أو يعني لما مركان أرجني ولا له أن دبعته هيسته إن أنه مارتي أجر منه وكقبضنه يعني دبعته لقيب سنه وحين نقطي ما دام أنه دجان كوسهريني إن أنه أرورنه وهي تبرتنا لقال عن أرورنا إن كتبه الأكادير راشين وسمينا بدينا أن نجارسينه مركا هذه أدبان نكون علينا ما دام يعني أدينكم آتين تي في وسهري أو كسر قريب قال أرنت تنا ديال إنه وحن ديوننا أنا سيا أم بقعدان وركن أو إيجاران ما لا درر. الشيخ دون واحد هذا إن لح بقول قفاض أيان أفرسنا لعيت سالكين يسوق شيء ما إنك عشقي أما شركة كلا أما بدرة في هذا عنها أما شركة هو بما عملت أتكيشان. بسم الله الرحمن الرحيم. وسؤال مهم أو لقوا مرمانة وحوي وحكلوا عن وكالة ملا ولا لها مجال عن شغله يو قبل وحكله برابانتي أيا وحنو جارسيني يعني دبعته جرته إن بدأ أيا كم بدأ أيا نص قرمضي هذا يعني وانو وحمارتي أنت بدن يعني ديما كسوقادنا كبعدنا وانس كديبنا وهي مارتي نقصوهرة لكن إلهي ما أدري هذا ون ما الفعل عن عمر يسعود بدن أيا نص قرمضي إن dadka u badan oo musaacadaha dadka siiyo ama musaacadada barnaamijkan ka qayb qaata ma Soomaali ba u badan mise ajaanibtuna waa kamid yihiin waxa u badan Soomaali ba u badan yani maadaan iraado 99% waxa kaliya oo yani wax nagu taray oo nagu soo biiray masaajidkan aan calaamadiisa hadda gadaalkayga ay tahay oo ayada lafteeda loo baafinayo oo yani in wax loo qabto oo laftiisa la dhiso ayaa noo soo gurmaday gacan buuxdana nasiiyay ilaa haddana nala wada in waxa hay'adaha raabatada khariida ama banaanka ama sacuudiga ama meelaas wax ma ka heshaan afurkan wax hadda la taaba karo oo balaaran oo hadda aan ku sii karo male laakiin alxamdulillah hadda waxa naga soo gaartay 15 kartoon ilaa 16 kartoon araado oo timira ayaan raabidada islaamka naga soo gaartay ee Brussels wax kale oo hadda la taaba karo oo naga soo gaaray ma jiraan in barnaamijka ma balaarisaan ilaa Soomaali wax ma siisaan anagu de waxa weeye nin walba taagtiisa horta qodaxda ugu tagtaa waxaan ku bilownaa anagu ishaag 6 qofood oo teendo deganeed oo ku dhibaataysan oo qabow markii hadda waa kureele qabow ay ahayd oo qaarkood yani gabar kamid ah hataa ay u dhimatay qabowga daraadiis ayaan u gurmanay kabacdina barnaamijka wuxuu nagu noqday inay ilaa gaarto hadda maanta 560 lacag yani dad gaaraya inay noqdaan marka ilaahay mahadiis kulay bay sheeg waa wax Allah raali ka yahay san filayo aan u arkay oo dareennay marka waxa weeye hawsha aan hadda aan qabanayno ma ahan sheeg mid aan yani anigu ugu talagalnay inaan dhulka dhan aan gaarsiino laakiin gobolka aan deganahay iyo meesha aan deganahay inaan wax ka qabanno imasa sana ayaad ka shaqeynaysan barnaamijkan Ramadan Express bismillahir rahmanir rahim waxa weeye shantii sano u dambeysay intaan hubo ayaan ka shaqeynay تيسي وبلارنتا كل إذا كلفتي TV عن رأي TV وكتير كرتان يعني بلارنتا هي برنامج كله سميه إذا كو واحد إننا يكسر كرتان بركانا واحد ودني شن سنة ودني إنه واحد ميديا الصومالية كمت هم كسعودة ولي مني مادين مني جوي دينا عرمهن ما واحد قرادي يقول رئيسي ونقدو في برنامج يعني لوجو وعي قلنا أمد الصومالية أما أمد المسلمين إذن كأيها وصو الرأي أنا رجينا يا إن أنت مارتي عدكي نجار إن تجارسيسان الماشان لوجو بهاي ذات كمارتي كل باتيس إن مارت وحلاقة قبض إن شغدون هل كانوا حيا البور رمضان إنسامي كلا رهايو أو محد بور كان أو أبو أكودين أما عد أسمع سن عدد كل يرجلين سن كان مسجد كان محلي هذا مسجد السنة تلبروق وحوي إن بدن أيا مارت الواقيسو دتك عن جارسيني هذا وحنا نكون عي قلنا إن مساجد كانوا وحوي مساجد يعني مسلمين أنت بدن وحلوه ترى أيو كتيرة لبعض كانوا هيستا وحوي الدولة عاون ترى ما شفته
dad maaragtay hay'ado caawina ma jiraan annaga un baan maaragtay taakuleynteena muslimiinta ayuu ku taagan yahay haddana wuxuu ku dhow yahay inuu soo demo saas daraaddeed waxaan iclaaminay barnaamij ka bilaabanaya 24 ilaa 28 oo loogu aruurinayo lacag si bow loogu dhiso yani dubintaas yani looga ilaaliyo oo soo dubin masaajidka marka waxaan ka codsanayaa in maaragtay ii sheeg haddii hadalkeenu idin soo gaaro inaad arrintaas ka amba qaadataan ilaa 24 haddii aad leedmo halkaas wuxuu ahaa sheekh doon diini رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن haddeer waxaan u soconnaa magaalada khilsrayn oo degan qaxooti aad u fara badan waxaana halka ku yaala kaam weyn oo degan ilaa 1200 qofood oo qaxooti ah haatan waxaan wareysanaynaa dhalinyarada ka qaybgalaysa aruurinta ama siigeynta kaamka khilsrayn mid ka mid ah oo la yiraahdo Cabdulqani kusoo dhawaad Cabdulqani barnaamijkeena afuri walaalkaaga ee Royal 24 TV maxaad qabanaysaa baabuurdan ma kale baabuurtii ciyaalka xaafadda waay saa u dhannahay waa baabuurtiin waxa kale oo caawinaad meel kale nooga imaatana ma waxa annaga iska aruurinay iyo xooggeennii aan ku caawinaa dadka aan ku afurinaa ama hadda dadka la afurinay baa u diin alaabtan ama ma guriina u may alaabta dadka la afurinay wadna hadda waad raaci doontaa waa arki doontaa adigaba waduu ilaahay waa tagaynaa marka mar dhow anna kan waa gaarigaaga Soomaa kan waa gaarigayga kana dadka kana yarka kale saaxiibka yaale asna waa wuxuu ka qayb galayaa asagana qof soo qasabtay male nin walba asaga isqoro maalin walba ay raacano sidii maalintii ilaa hadda maanta 22 Ramadaan dada u taagan hoosan qaabishan insha Allah waan dhamaanaysaa inta yar oo noo hartay ilaahay khayr haniga siiyaan leenahay waa dad aad isku tixgeliyay inay afriyaan walaalahooda ma aha Soomaali kaliya waa walaalahooda muslimka oo dhan رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن haatanna waxaan la joognaa Sheekh Cali Maxamed oo ka mid ah dhalinta soo abaabulay barnaamijkan Ramadan Express kusoo dhawaad barnaamijkeena afuri walaalkaaga ee Royal 24 TV Sheekh Cali Maxamed aad u mahadsantahay jazakallahu khayr waan dhawahay waxa weeyaan
barnaamijka Ramadan Express iyo afuri walaalkaaga oo laba barnaamij oo macnaha insha Allah taala isla shaqeynaya oo maaragtay sidii loo afrin lahaa qofka muslimka ee walaalkeena ay sooman macnaha waan kaalin uga qaadan lahayn aan uga qayb qaadan lahayn intaas ayuu ku saabsan yahay Ramadan Express macnaha muddo ayuu soo jiray insha Allah taala waan soo gudbin doonaa taariikhdiisa oo kooban insha Allah Ramadan Express ila muddo ma ku jira taariikhda Ramadan Express haddaan dib ugu noqdo Ramadan Express waxay hawshan ay bilowday 2009 bisha Ramadan waxaan ku bilownay dad ku jiray xerada Khilsa ee magaalada Tilburg dalka Netherland dadkaasi oo ah dad Soomaaliyeed oo markaas macnaha teendooyin ku jira oo interview sugayay markaas aan haysanin wax ay ku afraan iyo maaragtay oo waqtigan uu iska dheeraa markaas waxaa timid fikrad ah in dadkii macnaha in loo gurmado marka waxaan bilownay sida ugu fiican ee ugu dhaqsiyaha badan ee maaragtay ugu degdegsan ee dadku wax loo gaarsiin karo waayo xilliga warka la soo gaarsiinay macnaha ma jirin Chinese macnaha marka inta dadka loo tago lacag laga soo aruuriyo oo meel wala soo geeyo wixii la soo diyaariyo marka waxaan markaas soo jeedinay fikrad ah in dadka guryaha looga tago oo raashinkii laga soo qaado kadibna meel la isugu keeno kadibna loo geeyo dadka xerada ku jiray marka meeshaas ay ka bilowatay alxamdulillah ilaahay uu garab galay waxaan ku bilownay inaan kaalmayno ama rabitaankeena wuxuu ahaa 30 qofood laakiin waxa Allah subhanahu wa ta'ala arintii uu ka dhigay in 300 oo qof sanadkaas aan afurino waa sanadkii koowaad ee arinta aan bilownay oo ah 2009 300 iyo macnaha tirada exact inta dheeraad ma sheegi karaa laakiin 300 wax ka badan ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaray in maalintaasi meesha lagu afuriyo sanadkaas macnaha 2009 ka macnaha waxaa tira 300 qofood ma Soomaali kaliya ah ama ajaanibna ku jireen marka xilligaas macnaha xerada dadka ku jiray oo anagana qaas ahaan aan u gurmanay waxay ahaayeen Soomaali oo 98% hadaan yarayo macnaha Soomaali ahaayeen laakiin anaga qofna ma dhahin ha imaanin waxa ku jiray Ethiopian waxa ku jiray dhalinyaro Eritrea ka socotay waxa ku jiray dadka yimid wadamadan kale ee muslimiinta Afrika waxa ku jiray wadamada kale Carabta marka dadkii marka joogay qof kasta oo Soomaan oo afar u baahan waxay aad meel saala ah oo dadku dhan wada galayaan oo wada furan tahay oo la fadhiisanayo kuraastii dadkeen raashinka meesha ay ku cunayaan marka ma jirin dad la kala soocay laakiin dadku ugu tirada badnaa su'aasha u soo noqdo waxay ahayd dad Soomaali ah dadka meesha ku afuray sanadka anna haatan waxaan maqlayay ilaa 600 ilaa 620 qofood in afur siisan taayadaas halkee keenteen طبعا marka aad howl aad gasho waxa sanad walba waxa ku biiraya macnaha waa aragnimo sanadkii koowaad arinta marka aan sameeynay sanadka ku xigay wax baan ka bedelnay habkan waxa u sameeynay waxaan bilownay inaan lacag aruurino haddaan ku soo gaabiyo sanadkan macnaha oo su'aashaadu ku tacalluqdo sanadkan macnaha habkan wax u bilownay sanadkan waxaan bilownay bilo ka hor inaan macnaha aan diyaarino in macnaha dadka aan wargelino in sanadkan la afrinayo dadka ku jira xerada sanadka horena waan sameeynay sanadkaana macnaha dadka waxaan wargelinay waqti ka hor taasi waxay noo suurtagelisay in dadkii ay bilowaan Ramadan markuu biloobanayo usbuuciya ka hor in lacagta macnaha qof walba wuxuu ku tabaruci karo inuu soo gudbiyo markay taa dhacday waxaan anaga aan sameeynay marka inaan dadkii maaragtay maadaama tirada ay badan tahay oo aan guryaha wax lagu soo korin karin sidii systemka marka hore uu ahaa in marka aan abaabulno jiko marka waxa arinta uu qumay walaalo Soomaaliyeed oo dumar ah waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan ilaahay ugu toogaya in macnaha ilaahay ka abaal mariyo oo fi miisaan xasanaatuhum yawm al-qiyaamah ilaahay ugu dhigo dadkaas ayaa jikadii galay oo jikadii maaragtay naga qabtay qiyaas macnaha waan sheegi doonaa inta la macnaha la diyaariyo laakiin waxaan systemku u bedelnay in dadka lacag ay iska soo aruuriyaan kadibna hal meel wixii lagu soo kariyo bariiskii iyo digaagii iyo sambuusii iyo wixii la sameynayay kadibna markaas la isugu keeno meesha aan joogno halkana wixii lagu qaybiyo macnaha ma dad baa wax isweydiinaya 600 qofood qofka afur siinayo maximal maalintii qofkii hadaan aano waa $1 ama €1 example waa maalintii $600 iska yani qiyaas ayaan sameeynaa bisha afar week waa 18,000 oo dollar aan u maleynayaa tirada $600 maalintii xalaas lacag halkee ka heshaan maadaama atiin dadka xooti wadanka jooga
طبعا وحجر معناها dhaqaalaha runtii macnaha waxa weeyaan waxa asaaska ama tiirku ah macnaha hawsha la wado tirada macnaha sida rasmiga ah oo anaga aan hayno waxa weeyaan waa 500 iyo wax la jira macnaha 520 ilaa 530 hadba sida ay gaarto laakiin lacagta markaan u soo noqdo lacagtan runtii wax lacag meel taalay oo anaga meel aan ka soo saarnay ma ahan waa lacag dadka Soomaalida xooggiisa ay soo aruuriyeen oo ay ku tabaruceen waxaan sameynay flyers ama wax yiraahdo waxay dacaayad waxaan u sameynay dadkan ku wargelinayna inay macnaha ay ka qayb qaataan barnaamijka oo la qeybiyay usbuucyo ka hor intuusan Ramadaan dhalanin dadkii waxa gaaray waraaqahaasi dadka magaalada joogan waxay isku qoreen lacag ugu yaraan 50 euro qofkiiba macnaha inuu bixiyo marka magaaladana dad waxa degan aad u tiro badan dad macnaha Soomaaliya qaasatan Soomaalida ay ugu badan tahay magaalada Tirburg marka qof walba wuxuu isku qoray lacag 50 dollar euro markay ugu yar tahay dad waxa jira 100 bixiyay dad waxa jira ka badan bixiyay dad waxa laga helayaa 500 bixiyay marka runtii saasay ahayd marka lacagta waxa way Allah subhanahu wa ta'ala saqira laakiin waxay ka timid jeebka Soomaalida kadibna waxaan ugu soo biiray walaalaha masaajidka hadda aan joogno ayagana macnaha qaybta dambe markay arkeen juhdiga iyo waxa socda waxay nagu soo biireen aduu bisha markaan gabagaba ay ku dhowdahay dhowrito markay marayso macnaha Ramadaanka xoogiisa uu baxay laakiin alxamdulillah ay galabtirkooda wax baan naga soo gaaray ilaa iyo wax ku dhow 3,000 marka runtii xooga iyo juhdiga lacagta hadda aan sheegayno waxaas oo dhan waxa asaas ah oo beeso ah waa Soomaalida degan magaalada Tilburg iyo magaalooyinka kale ee ku xeeran iyo qof kasta oo Soomaaliya oo arintan ay gaartayna macnaha xataa waxa jira dad account lacag noogu soo shubay oo soo gaarsiiyay marka lacagtaas ku timid ilaa khair hasi aan leenahay in 600 qofood hadda afrisan ma Soomaali kaliya ma ajaanibna ku jiraan markii hore hadalkayga uu ku jiray macnaha dadka waxa ugu badnaan jiray Soomaalida laakiin hadda dadka ugu tirada badan meesha jooga waxa weeyaan walaalaha Syria ka soo qaxay dagaalka ka socda Syria marka dadka tiradooda macnaha markaan fiiriyo 20% waa Soomaali 80% waa Syrian macnaha iyo dad kale isaga dhex jira oo wadamada kale Afrika qaar ka socda iyo waxa laga dhaxelayaa Afghanistan Pakistan ilaa iyo wadamo badan laakiin majority ama dadka ugu tirada badan waa Syria waxa ku soo xigaya waa Soomaaliya waxa ku jira Eritrean marka sidaas dadka meesha ku jira ay isku jiraan macnaha ayna muxuu sheekh Ali hadda ku weydiin muxuu faa'iido leeyahay hadan nin qof walaalkii hadda afursiyo maxaan ka helayaa oo ajir ama xasanaad aan ka helayaa ma noo sheegi kartaa waa su'aal aad muhiim ah runtii anaga macnaha horta waxna dhaqaajinayo waxa waaye waa diinteena Allah subhanahu wa ta'ala يعني نعمة وحاب ضدك كغفلان تن الله سبحانه وتعالى ودين معناه يعني الله سبحانه وتعالى دين تن إله نوجو من يستي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أو نوجو شيء معناها فضل يقوليه إن قفل أفريقيا أي نوجو فلان إن معناها قفل بقى صومالي أم قف كسر مسلم ومشى إنه كدن قاضي أم أو كقاطع معناها ساد كيسة رنتي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث وحكوليه هي قف كأفريقيا قف صومن waxa uu leeyahay ajarkiisa asagoo ajarka qofka soona aan waxba laga dhimin marka meesha hadaa fiiriso adiga waxa weeyaan marka aad soomayso oo biyihii iyo raashinkii iyo waxa dhan ka tagayso waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynayso waxa weeyaan macnaha ajr inaad ka hesho marka hadii ajarkaas lagu raaciyo qof kale oo walaalka oo soona ajarkiisa lagu raaciyo runtii waxa weeyaan wax aad iyo aad u qurux badan marka waxaan ka duuleynaa waa taas kumana xirna inuu qofkaas wax haysto ama inuusan wax haysan maanta aniga labadeena isla hadlayno oo labadeena guriga ka soo wada baxna maanta hadda aniga aan ku marti qaado oo aad maanta guriga ka afurto waxaan leeyahay ajirkii Ramadaanka maanta aad sooneed intii lagu qoray intiisa la qoraya marka kuma xirna inuu qofka wax haysto ama inuusan wax haysan laakiin waxa weeyaan rasuulku wuxuu nagu booriyay oo xadiiskana noo tilmaamaya in qofka kale uu afuriyo oo sunnada ay meesha ka bixin meesha marka waxa soo galaya qof aan wax haysanin qof wax haysta inta way soo galayaan marka waxa weeyaan in sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam aan noolayno in walaalaheena macna aan waxba haysanin aan maaragtay ay lafirkooda aan waxaan awoodi karna ana u sameeyna aan u qabano meeshaas ayaan ka duulnay marka sida rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu yiri macna man saama رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه marka hadii la yiri qofkii marka sooma hadii dambigiisa kii hore loo dhaafayo
maxaad meenaysaa marka haddii xadiiska kalena uu ku sheegay in qofkan haddii aad soomiso aad afuriso ajirkiisa aad leedahay marka runtii waxaa ramadaanka ku sugan waxyaaba aad iyo aad u tiro badan oo fadliya marka anaga waxaan ugu dhawaanayna Allah subhanahu wa ta'ala in macnaha naga ajir siiyo inta ka qayb qaadateen waxaan rajaynayaa in macnaha dadka Soomaalida ay sida isugu gurmadaan sidaan isugu danqadaan runtiina macnaha dad badan oo walaalaheen oo Soomaaliya jira maanta macnaha afur haysanin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan ka talaabno 6 sanadood hadda waxaan ku mashquulsanahay halkan laakiin inaan u gudubno dalkii oo aan dalkana aan wax gaarsiin insha Allah ta'ala mustaqbalka saas rajaynaynaa أن الشيخ علي dad badan dumar badan baa ka shaqeeya barnaamijkan oo wax kariya xoogooda maalkooda waxooda iyo dhalinyaro iyo dad waaweynba maxaad dhihi lahayd dadkaas waa aad u mahadsantahay runtii macnaha fursadda waxaan kaga faa'iideysanayaa horta macnaha Royal TV inaan u mahadceliyo oo fursaddan siiyay oo macnaha inaan mashruucan khayriga ah ee Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanay macnaha in dadka uu u gudbiyo oo maanta macnaha waqtigiisa geliyay oo macnaha waqti badan ku lumiyay qaasatan oo walaalaha hadda nala jooga talabaad waxaan macnaha aan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ka qayb qaatay anoo ku hadlayo magaca istiqtinka Ramadan Express dadka ka qayb qaatay mowduuca mashruucan afurinta gaar ahaan dumarka macnaha jikada ku jira macnaha runtii dhabarka u dhigtay hawshan waxaan haday aan ilaabay inaan sheegin macnaha tirada inta la egtay wax la sameeyo maalintii meesha laga qiyaasi karaa dadkaasi juhdiga iyo hawsha ay ku jiraan maalintii waxa la sameeyaa wax ku 60 kiilo oo bariis ah iyo 60 kiilo oo macnaha maxay ahayd oo digaag iyo ama hilib wixii markaas la heli karo laakiin badanaa waxaan sameeynaa digaag maadaama asaga uu jaban yahay marka dadka hawshaas gala jikada gala ee macnaha hawshaas sameeyo waa dumarka marka Allah subhanahu wa ta'ala asma ka awaal marin kara asan waxaan ilaahay ugu tagnaa ilaahay في ميزان حسناتهم يوم القيامة إلهي نقوله وحا هوشان أيضا كالين عن نتاس كليدا كقاطي لأن يرد تربضان يا أضيال وأن لو كلا هرين مركراشين كلا صوت دياري وحي أبانتها إن لا دياريو هل كان كود ديارنا أو معناه وحا لقول ذا بوكسيو أو معركة لو تلقلي أو تك أوي وكلا marka qofkii boksidaas loo reedayaa briiski digaagi iyo timirtii sambuusi wixii oo dhan marka qofkii markii waxa loo diyaariyo asoo wixii ay diyaar yihiin ayaa macnaha waxa loo geeyaa macnaha xirada loogu geeyaa marka hawsha wad qiyaasi kartaan juhdigeeda iyo waqtigeeda maalintii subaxdii si loo bilaabay ilaa iyo habeen 5 saac lagu mashquulsan runtii aanan macnaha waxba ku ziyaadinaynin laakiin ujeedadeedana ma aha inaan macnaha aan kuma sheeganina dadka aan wax u qaban laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka walaalaha ah ee hawshaas macnaha kaalinta ka qaatay qof walba inta la ekaato kaalintu qaatay laakiin qof walba oo kamid ah dadka walaalaha ah kaalin ayuu qaatay ilaahina ha ka awaal mariyo waxa kale jira walaalo ayagana isxilqaamay oo macnaha dhar soo aruuriyay oo macnaha dadka meesha degan ayagana meesha la sirkooda dharkii macnaha loogu geynayo dharkaas macnaha qofkii dhar macnaha guriyaha ku haystay ama dhar cusub ha ahaado ama mid uu isticmaalo uusan u baahnayn dharkaas inta aruurina meesha loogu geeyay marka waxyaabo badan juhdi aan halkan lagu soo koobi karin ayaa meesha ka socda marka waxaan u mahad celinayaa anagoo macnaha ku hadlaya magaca ururka dhammaan dadkii arintaasi ka qayb qaatay juhdi ka geystay dadkii wax sadaqaysanay ilaah baa ka awaal marinaya mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa telefishinka Royal TV oo macnaha isagana macnaha fursadana siiyay waxaan ilaahay ka togaynaa ayna la sirkooda inuu fi miisaan xasanaatihim yawm al-qiyaamah ilaahay ugu daro qofka macnaha wanaag iyo khayrka dadka u gudbiya waxa weeyaan asagana ajirkiisa waa uu leeyahay idinkana waxaan rajaynayaa in ilaahay ajirka idinka qadin insha Allah ta'ala jazakallahu khairan kulena barnaamijkan maadaama aad ugu soo shaqeysay jazakallahu khair akaasina waxa Sheekh Ali Maxamed oo ahaa dadka abaabulay barnaamijkan Ramadan Express aan ku wareysanay masaajidka Al-Sunnah ee magaalada Tilbrook هذا waxaan nimada kaamkii ugu weynaa ama xareedii ugu weynaa qaxootiga ee magaalada Khilsraan dad badan ayaa yaqaan oo soo maray wadanka Netherland kaamka Khilsraan waxa ku nool qaxooti dhan ilaa 1500 qaxooti laakiin halkan waxa afar la siiyaa ilaa 700 oo qaxootiga kaamkan ku jira raashinkii ayaa yimid haddana oo laga dejinayay gaariga oo loogu talagalay muslimiinta ku nool oo wadankan Netherland gaar ahaan magaalada Khilsraan kaamka ku yaala ama xarada ku taal magaalada Khilsraan رحمن يا رحمن
حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح. haddeer waxaa bilowday qaybintii afurka oo dadka lagu talagalay afurka la siin lahaa. afurku waxaa loo qeybiyaa sida tan dadka halkan ku nool waa 600 oo qof oo muslim ah oo na sooman in aan rabo inay afuraan. waxaana loo sameeyay kaararka sida tan ah. qofku waa inuu kaar wataa magaciisa sawirkiisa iyo taariikhda afarta wiig oo qaadan doono afurka oo halkan laga sixi doono. magaciisa markuu halka yimaado magaciisa waxaa daranayaa kadib waxaa la saxayaa maalintuu yahay taariikhda ku qoran iyo maalinta marka la socod kadib ayuu wuxuu tagayaa dhinaca raashinka lagu qeybiyo asoo kaarkiisa wata oo halka laga soo saxay. halka uu yimaado raashinka lagu qeybiyo markuu halka tago kadib ayaa waxaa la siinayaa wixii loogu talagalay oo ku afuri lahaa. waa timir bariis hilib busba sambuusa bur wax walba oo soonka loogu talagalay. marka ugu horeysa waxaad qaadanaysaa markaad kaarka iska soo saxdid magacaaga waxaad qaadanaysaa marka ugu horeeya shaygan oo ku jiro bariis iyo digaag. kadib waxaad imaanaysaa halkan oo aad ka qaadanaysaa cabitaanka iyo timirta la cuno. kadib halkaas ayaad u sii gudbaysaa waxaad qaadanaysaa waxa ku dhiman. halkan waxaad qaadanaysaa marka waa meesha ugu dambaysa maxatada ugu dambaysa rooti iyo sambuusi iyo bur iyo wixii macmacaan oo ziyaada ah. halkaas ayay ku eg tahay waano berit. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
intaas ayuu ka barnaamijkeenii afuri walaalkaaga ee Royal 24 TV Kamaldin Antarnaji Royal 24 TV magaalada Tilburg wadankan Netherlands